deeqda raashinka ah oo loogu talagalay dadka saameynta ku reebatay abaarta ku dhufatay qaybo ka tirsan gobolkan Hiiraan ayaa waxa soo dhiibay dawladdan walaalaha nahay ee Jabuuti iyadoo maamulka gobolka Hiiraan ay maanta ku wareejiyeen safiirka dawladda Jabuuti oo fadhiya dalkeena Soomaaliya Aadan Xasan Aadan iyo waliba sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dawladda Jabuuti. munaasabad kooban ayaa maanta waxay ka dhacday xarunta maamulka gobolka Hiiraan isla markaana lagu wareejinayo deeqda raashinka ah ee ka timid dawladda Jabuuti iyadoo munaasabada inta ay socotay hadal kooban oo raashin wareejinteed ay ka jeediyeen safiirka dawladda Jabuuti oo fadhiya dalkeena Soomaaliya Aadan Xasan Aadan iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Jeeti Cusmaan. وصلى الله على سيدنا محمد waxaa sharafno maanta oo aan joogno beledweyn safaaradda jamhuuriyadda Jabuuti ee Soomaaliya iyo ciidamadii heel qaran saraakiishii xukumaysay AMISOM aan la joogno gudoomiyihii gobornatorihii Hiiraan iyo madaxdii gobolka dhammaan oo aan ka sheekaysano danaha gobolkan iyo waxqabadka ciidamadeena oo la hawlgala walaalahooda Soomaaliyeed waxaan ka hadalnay runtii oo ka sheekaysanay wax badan oo dhinacyo badan taabanaya haday noqoto iskaashiga military la dagaalanka argagixisada horumarinta gobolka iyo ayaka talinta mustaqbalka fog. waxaa kaloo sharaf noo ah sidoo madaxweynaha iyagu na amray inaan kala qayb qaadano madaxda gobolka kala qayb qaadano gurmashada ku tabaaloobay abaaraha oo raashin aan halkan iyo ilaa Buulburte ilaanahay wixii laga gaarsiin karo laga gaarsiiyo gurmad degdega mustaqbalkana haddii Ilaahay yiraahdo aan diyaar u nahay wixii kale Ilaahay noo dhiibo inaan maartaan la soo gaarno subax runtii qiimo leh waa halkan dhinaceena iyo gadaasheena yaalay waa raashin gurmad ah oo ugu talagalay dadka abaaraysan ee gobolka Hiiraan waxaana ugu deeqay dawladda walaalaheena ee Jabuuti mana aha kii koobaad mana aha kii labaad wax kii koobaadna ma kii labaadna ma gurmadku markasta oo problem noocaan u dhaco gurmadkooda waa ina soo gaari jiray haddana mid ka badanna waa ka rajaynaynaa haddii Allah idin gurmad intaa ka fogna waa ka rajaynaynaa waxaanaan loobi karin booqashada iyo waqtiga dheer oo ay fursadda ayna siiyeen maanta Excellency safiirka dawladda Jabuuti Soomaaliya generaalkii ciidamada AMISOM oo waqti aad runtii munaasib noogu ah na soo siiyay fursadooda waa idin mahad celinaynaa welcome beledweyn welcome ku soo dhawaada gurmadkaas aad u fidiseen dadka walaalihiina ee reer beledweyn ama reer Hiiraan Excellency waa idinka guddoonaa aad iyo aad baan si kastaba teema ah markii ugu horeysay oo gurmad gargaar ah oo ka yimaaday dawladdan walaalaha nahay ee Jabuuti la soo gaarsiiyay shacabka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayadoo dawladda Jabuuti si gaar ah u fiirisay dadka dhibaataysan ee ku dhaqan gobolkan Hiiraan deeqda raashinka oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 20,000 oo iskugu jira bur bariis iyo waliba sidoo kale sokor isla markaana loogu talagalay dadka ay saameynta ku reebtay abaarta ee ku dhaqan gobolkan Hiiraan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona dad badan oo tabaalaysan. Cabdishakuur Maxamed Xasan TV-ga caalamiga ah waa Bari TV magaalada Beledweyne.